dhacdadii ugu la yaabka badnayd aan ka maqlo qof masqaniinay waatan ila dhageysa sheekada tan ah nin masqaniinay oo lagu daweeyay 1,300,000 dhakhtar dhan oo Arrival ah Mareykanka ku yaala dawadii kaga dhamaatay sida ninka loogu muday qisada tan ee la yaabka aan kaaga dhaco magacaygu waa Sir Fatxi ku soo dhaw video-ga maanta dhacdadan waxay ka dhacday waddanka Mareykanka ninka kan magaciisa lahada Chris Huth ayaa baan ku dhacday Chris waxa uu socday gobolka California halkaas oo ku booqanayay hooyadii intuu jidka sii socday waxa qaniintay abeesada magaceeda lahada Gambeeleyda dabadeeda yaani Sanchez ko kale sawir ruuxda Listen to that rattle. ina second bay laba jeer qaniintay isagoo xaaladiisu aad u liidataan ninka halka laga qaaday dhakhtar baa la geeyay waxa lagu mudayay irbadii dawada oo ahayd sunta maska hal irbad may waxba kama tarin 2 3 4 5 6 7 9 10 ma afar iyo konton irbadood markii lagu muday ee xaaladiisu sidii dhaami weyday isbitaalku yaala oo Arrival ay ka dhamaatay dawadii sunta maska ayaa helicopter laga qaaday waxana la geeyay isbitaalka Stanford halka kaasana waxa lagu muday irbad ka gedisan kuwii hore 12 cisho ayaa ku jiray ICU-ga ama qaybta gurmadka gaarka ah ee isbitaalka halkaas oo xaaladiisu u dhaxaysay geeri iyo nolol ugu dambeyn Ilaahay caafiyo ka kac suntii maska hasa ahaatee markii uu sir dhakhtarka ka bax oo lacagta lagu daweey bixi ayaan buu arkay biilka lagu soo dalacay in uu dhan yahay 1,300,000 familigiisa isagiiba fajiciisa ku dhacday lacagta inta leeg muusan haysan taasina waxay keentay in familigoodu tabarucaad u raadiyaan dhaxan dadkuna soo caawiya aan balgashigan iska bixin muuqaalka dad halkan soo gaadhay aad wad mahadsantiin salaam calaykum